daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday in adduunka dadka saaran aad ugu yaraanayaan daraasadan oo lagu sheegay dawladaha dadkooda hoos u socdo marka laga bilaabo taariikhda 2020 ilaa 2050ka dawladahan ayaa la xaqiijiyay in shacabkoodu uu yaraanayo dhanka tarankooda dad ahaaneed dawladahan ayaa kala ah Talyaaniga Georgia Greega Japan iyo Bosnia Talyaaniga ayaa dadkiisu hoos u dhacay boqolkiiba 10.1 waxayna tira ahaan shacabkooda lagu qiyaasaa 60 milyan oo qof Georgia wuxuu shacabkiisu hoos u dhacay boqolkiiba 11.8 waxaana lagu qiyaasaa shacabka Georgia 4 milyan oo qof Greega wuxuu hoos shacabkiisu u dhacay boqolkiiba 13.4 wuxuuna dadkiisu dhan yahay 10 milyan iyo bar qof Japan wuxuu hoos u dhacay dadkiisu boqolkiiba 16.3 waxaana shacabkiisu lagu qiyaasaa 126 qof Bosnia waxay hoos u dhacday shacabkeedu boqolkiiba 18.2 waxaana lagu qiyaasaa hadda 3.3 milyan oo qof taasoo tilmaan u ah in shacabka reer Bosnia ay aad u sii yaraanayaan daraasadan ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in hoos u dhac ku yimid dhalinyarada kuwaasi oo xoog ama dhaqaale ay ku tiirsan yihiin dawladuhu waxaa sidoo kale aad u badanayo dadka da'da ah oo aan iyagu awoodin inay shaqeeyaan haddaba arinta ayaa loo sababeeyay inay tahay guurkii oo yaraaday musiibada cudurka dilaaga ah ee coronavirus kaasi oo saameeyay dhammaan caalamka isticmaalka dawooyinka uurka looga hortago dadka isku jinsiga ah oo dalalka qaar ay u fasaxeen inay wada noolaan karaan iyo dad badan oo jecel inay kali noolaadaan